halkaas barxadaada qamri lagu miismiisanaya dadweynihiina waa fiirsanayaan ma noqonayso goldogob xas lagu dhunto uma dulqaadanayno ma yeelayno qofkii amniga ka hor yimaada tilaabo cad baan ka qaadayno magbuuna nagu lahayn dhibbuuna nagu lahayn wax magaciisuna nagu lahayn waajibka aan leenahay ka qabsanayno dadka reer goldogob waa dad dawladnimada jecel waa dad horumarka jecel dad dana gaar leh waa laga yaabaa inay dadka dhibta wada inay yihiin ayagana ku daawan mayno annagu samada kamaana imaan deegaanka u dhalanno ama ayaga deegaanka u hareeya ama annaga u hareyna amniga wixii ka hor yimaada oo inta taliyuu sheegay ka hor yimaada oo amaamiirta degmada caqli u ahaa iyo dawladduba ay isla gaareen wixii ka hor yimaada tilaabo sharciyaan ka qaadaynaa waa anigoo ah taliyaha ciidanka howlgelinta gobolka gaalkacyood ilaa degmooyinkiisa baardaaq waxaan ka howlgelaynaa caawayto magaalada degmada goldogob waxaan rabnaa dadweynuhu inuu nala shaqeeyo odayaashu nala shaqeeyaan dhallinyaradu nala shaqayso haweenku nala shaqeeyaan waxaan goobaynaa horumarka goldogob baan raadinaynaa dhibaato ma wadno dadka shacabkaabaa baallanoo ah dadka waxa weeye inay nala shaqeeyaan baan doonaynaa amniga nala shaqeeyaan caawayto waxaan bilownay shaqadii u horraysay baan maanta bilownay ilaa inta ay naga gaarayso magaaladu xasil ka noqoysana waa joogaynaa haddii aan laydno waxaan hadda bilownay jagboontiyaashii baaritaankii waxa weeye dadka yaynano dhib u qaadanin gaariga la baarayo oo la istaajinayo oo jagboontiga askariga taagan yahay lagu baarayo oo soconaya askariga markuu arko toosh u bixiyo waa inuu istaagaa waa inuu dawladnimo muujiyaa waa in dadka saaran dawladnimo muujiyaa haddaad tidhaahday see la ii baara dawladnimo muujin maysana waxaad muujinaysaa qof amniga ka soo horjeeda inaad tahay qofka aan raadinaynana baad noqonaysaa haddii waxa weeye aadan dawladnimada u hoggaansamin gaarigu waa inuu istaagaa waa in waxa weeye dadku heegan u noqdaa dawladnimada guryahaa la baarayaa waxaa la baarayaa inta ka shakisannahay dadku waa inuu noo istaagaa wax dhibaato annagu ma wadno degmadayadaan kor u qaadaynaa kastan bay yeelatay ayraboor bay yeelatay waddadii waxaa ku soo socotaa ilaa garacad iyo isku xidhaysa ilaa goldogob oo muhiimaddaayoo wadnaha ah waxaan rabnaa amnigayaga inaan ka shaqayno halkaas barxadaada qamri lagu cabbayaa lagu miismiisanayaa dadweynihiina waa fiirsanayaan waxa weeye in naloo istaago oo qofka dembiilaha meesha uu galo la yidhaahdo ciidanow halkaanuu ku jiraa waa ina hebel waa kan dembiilo weeye kan gaariga dhacaya kan ninka dilaya kan waxa weeye ku soo gabbanayo oo degmooyinka wax ka soo samaynaya bilmatalan hadda gobolka niman dembi ku gale goldogob bay waxay yidhaahdeen baan ku dhuumanaynaa waa qalad waxay yidhaahdeen bursaalax bay dembi ku galeen waxay ku galeen etoobiyay ka galeen meel walbay ka galeen goldogob baa waxay noqotay yacni xas lagu dhuunto ma noqonayso goldogob xas lagu dhuunto uma dulqaadanayno ma yeelayno qofkii waana naloo saxiixay odayaashuna way qaateen qofkii amniga ka hor yimaada tilaabo cad baan ka qaadayno magbuuna nagu lahayn dhibbuuna nagu lahayn wax magaciisuna nagu lahayn waajibka aan leenahay ka qabsanayno ninkii qof aan la aqoon keena iyo ninkii yiraahdo dadka Soomaaliyeed ka soo qaxay anay magan ii noqonayaan iyo gurigayaan ku haysanaya gurigaagana dawladda la wareegaysa adiguna xabsi waa ku dhamaysanaysaa cimrigaaga inta ka dhiman dadka reer goldogob waa dad dawladnimada jecel waa dad horumarka jecel dad dana gaar leh waa laga yaabaa inay dadka dhibta wada inay yihiin ayagana ku daawan mayno annagu samada kamaana imaan deegaanka u dhalanno ama ayaga deegaanka u hareeya ama annaga u hareyna kii xaq wada ilaahayna waa ogyahay ummadiisuna waa u jeedaa waana shaqaynaynaa waana shaqayn doonaa waana shaqayn jirnay goldogob inaan u shaqayno mudug u shaqayno buntland u shaqaynaana diyaaruna in la shaqeeyaana muhiim ah ha loo istaago dekadii garacad way dhismatay ayraboorka goldogob wuu dhismay wuuna furmay kastankii baa dhiman ha loo istaago dadka reer goldogob gaar ahaan dibadda daakhil dawladnimada
maamulka sistamka horumarka intaba ha loo istaago ciddii khalad ku wadatana isku dhan ha looga soo jeensado waa inuu qofkii qof keensanaya waa inuu laamaha amniga uu soo maraa hadduusan soo marin wuxuu ku dhaca asagaa ka mas-uula wuxuu geysta qofkaasuna asagaa mas-uulka ah